Assalaamu calaykum. Maanta waxaan bilaabi doonaa buuggii English Grammar and Use inagoo maanta ka bilaabi doona casharkeennan ugu horreeya kuna soo koobi doona introductionka ama hordhaca buugga. Markaa soo dhowaada. buuggan English Grammar and Use waxaa loogu talagalay ardayda hoose ee wax yar uun ka garanaya Ingiriista balse aan ahayn arday bilow ah. aan imika bilaabaynin micnihii waxaan ugala jeednaa imika aan ABCD ka bilaabaynin balse wax ka mid ah Ingiriista wax ka soo arkay oo kasoo dhigtay kelmadaha iyo sida sentenceska lasugu xidhaya iyo waxyaabaha basic ah wax ka soo arkay. waxaa ka faa'iidaysan karaa ardayda iskuullada ka maraya heerka hoose dhexe oo uu grammarkoodu daciifka yahay ama kuwa problem ka haysto qaybo ka mid ah qaybaha basic hoose ee grammarka. qodobo muhiim ah oo ku saabsan buuggan English Grammar and Use. waa buug grammar ah kuma tacalluqo qaybaha kale ee luqadda. grammar waxaan ku jeednaa naxwaha Englishta waa buug ka kooban oo caan ah oo English Grammar and Use aad caan uga grammarka iyo naxwaha Ingiriista in laga barto. sidaan hore u soo sheegnay waa buug ardayda hoose loogu talagalay ee wax ka soo arkay Ingiriista. ma wada daboolayo dhammaan qaybaha grammarka ee sida caadiga loogu barto heerka hoose dhexe ee dugsiga. waa buug leh laylisyo iyo tusaalayaal balse aan u habaysnayn sidii koorso oo kale. waa buug uu ardaygu iskii isu bari karo oo aan u baahnayn macallin uu isagu iskii hadduu wax ka soo arkay Ingiriista uu iskii isu bari karo. waxaana Ingiriish lagu yaqaanaa self study book. buuggan English Grammar and Use waxa uu ka kooban yahay 115 cutub. cutub walba waxa uu awoodda saaraya area gaar ah oo grammarka ka mid ah. qalabka uu ka kooban yahay buuggu waxaa loo ururiyey hab grammar ahaana sida tenseska, questioniska iyo articleska. cutubyada looma habaynin siday u kala adag yihiin. sidaa awgeed haddii uu ardaygu doonayo inuu iskii isu baro waa inuu torto qaabka ugu habboon ee uu isagu isleeyahay waad ku baran kartaa. waxaad ka helaysaa liiska cutubyada bilowga buugga ee contentiska. haddaad iskaa u baranayso ha ka bilaabin bilow ilaa dhammaad balse waxaa wanaagsan inaad doorato cutubka aad u baahan tahay inay markaa kugu adag inaad barato. tusaale haddii mushkiladi kaa haysato tenniska present perfect sida I have been iyo he has done iyo waxyaabahii la midka ah ka baro cutubyada ku jira pageka 15 ilaa 20. isticmaal contentiska ama indexka xagga dambe buugga kaga yaala si aad u hesho cutubka ama cutubyada aad u baahan tahay in aad barato. haddii aanad hubin cutubyada aad u baahan tahay in aad barato isticmaal study guide oo xagga dambe ee buugga aad ka heli doonto pageyada 271 ilaa 282. cutub kastaa waxa uu ka kooban yahay hal page. warbixin qodobada grammar ah iyo tusaalayaal ayaa la socda cutub walba. leelishada cutubyadaasna pageyada ku xiga ayay kula socdaan. 7 lifaaq ama 7 appendices ayaad ka helaysaa pageyada 243 ilaa 251 oo la xidhiidha passive forms, irregular verbs, short forms ama contractions, spelling iyo versal forms. buugga xaggiisa dambe waxaad ka helaysaa ururo leelisyo dheeraad ah ama additional exercises pageyada 252 ilaa 270. leelisyadan waxay ku siinayaan tababaro isku dhafan oo laga ku soo ururiyey lagana keenay cutubyo kala duwan gaar ahaan kuwa khuseeya verb formska. qaybtan waxaa ku jira 35 leelisyo oo aad ka heli doonto pageka 252. ugu dambeyn waxaad ka helaysaa key ama fure pageyada 283 ilaa 309 oo ay ardayda ku hubin doonaan jawaabaha dhammaan leelisyada ku jira buugga. waa inoo casharka koowaad iyo maalinta berri ah insha Allah. ka faa'iidaysi wanaagsan.